Mareykanka Donald Trump wuxuu kiciyay qadiyooyin islaamka cadow ku ah sikadiis ah walaalayaal xamladani dacmi iyo taageero aad u weyn ay shacabka ka Zakir Naik adiga maxaad u maleynaysaa inay arrintan ka dambayso maxaad ku tilmaamaysaa arrintaas anigu waxaan rumeysanahay qof kasta oo caan ah inuu cadow yeelanayo waxaan aaminsanahay qof kasta oo caan ah inuu cadow leeyahay alla quraanka wuxuu ku sheegayaa in nabi kasta uu cadow leeyahay محمد صلى الله عليه وسلم أهانشديس رسولك ugu dambeeyay cadow ayuu yeelanayaa haddaba waxaan dareemayaa dadkaasi sida Donald Trump oo kale waxay sugayaan saxiixnimada quraanka alla wuxuu ku leeyahay suuratul furqaan waa suurada 25aad in acdaa uu yeelanayo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam in dad cadow ku ahaan doona nabi Muhammad ay jiri doonaan sallallahu alayhi wasallam laga yaabo risaalada nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markii horeba inay waajib ahayd in ay yeelato dad cadow ku ah kana soo horjeeda islaamka iyo nabigaba haddaba dadkaasi waa sida Donald Trump oo kale waxay sugayaan saxiixnimada quraanka waxaasi oo idil iyagoo jiraana islaamku waa u faafaya alla wuxuu quraanka ku leeyahay suuratu al-imran suurada 3aad aayada 4 waa ay dhakreen allana wuu abaal mariyay alle ayaana u wanaagsan koo wax abaal mariya haddii aad daawatay dhacdooyinkii 11 September kadib dagaal caalami ah ayaa islaamka lagu waday caalamka oo dhan dagaal caalami ah ayuu islaamka ku waday si iska dabiici ah dadku waxayba ka soo qaadeen oo ay aamineen in diinta islaamka ay u dhamaatay dagaalkaas kadib laakiin se waxaan helaynaa maanta dad aad u fara badan ayaa doonaya inay diinta islaamka wax ka ogaadaan waxaan helaynaa Mareykanka oo kaliya 9 bilood kadib dhacdadii 11 September 34,000 oo reer Mareykan ayaa diinta islaamka galay Yurub oo kaliya 10 bilood kadib dhacdooyinkii 11 September wax ka badan 20,000 oo reer Yurub ah ayaa diinta islaamka galay haddaba markasta isku dayaan inay islaamka weeraraan markaas islaamku aad ayuu u sii faafaya anigu waxaan aaminsanahay dadka noocaan ah si aad iyo aad diinta islaamka ay u faa'iideynayaan oo ay faa'iido u leeyihiin maxaa yeelay dadku markaas waxay ogaanayaan diintan oo waxay doonayaan inay wax badan ka ogaadaan marka dadku ay soo weeraraan islaamka waxaad ogaanaysaa in arrintaasi ay islaamka faa'iido u leedahay hagaag waa arrin wanaagsan Dr. Zakir Naik ma igu waafaqsan tahay haddii aan dhaho muslimiinta dadaalka ku bixinaya inay suuradii islaamka soo celiyaan sababta argagixisnimada islaamka ee dhanka reer galbeedka arrintaas waxay sabab u noqotay mal dhihi karaa in dhaqankii sareeyay ee islaamku ay dadku ka tageen oo ay hilmaameen waan kugu waafaqsanahay dhowr mar annaga muslimiin ayaan nahay mararka qaar caadifad ayaana qaadaysa tusaale ahaan waan ognahay wixii dhacay markii la sameeyay sawirada Denmark qalad ay dadka muslimiinta sameeyeen hay'ado badan oo islaamiga ayaa camalkoodii ka tagay arrintaas ay dilil ka dhiganayeen waa la rabaa taas inaan dililsano laakiin si camalkeena wanaagsan inaan ka tagna maaha dhammaan waxay muhiimada siiyeen inay radiyaan sawirada reer Denmark boqolkiiba 5 oo kaliya ayaa shaqeynaysay hay'adaha islaamiga haddaba malayso haddii dhammaan hay'aduhu arrintaas oo kale ay sameeyaan ummadda muslimiinta qasaare ay ku noqon lahayd waxa aan u baahanahay waxa weeye inay waajib tahay in la helo munadamaad iyo hay'ado u gaar ah arrintan oo kale muxaadaro ayaan ka dhigay qaabka loola dhaqmayo arrintan oo kale annagu waxaan sameeynaa horta caadifad ayaan ugu dheehneed hagaag annaga arrintaas waan ka soo horjeednaa laakiin lama rabo inaad qof caadifad ku dheehan aad noqoto adigoo joojinaya camal kasta oo waxtar u lahay ummadda muslimka haddaba haddii islaamka la soo weeraro annaga camalkeena kama tegayno wax kasta oo islaamka u sameynayno waxaan ka wadaa san hore kuugu sheegaba qof kasta oo caan ah waxaa waajiba inuu yeesho dad ka soo horjeeda tusaale ahaan oo kale haddii aad Google-ka ku qorto magacayga aad ku qorto waxaa jira ku dhawaad 15 milyan oo website oo macluumaadkayga wax ka qoray 15 milyan ku dhawaad 15% ilaa 20% way iga soo horjeedaan haddaba markuu qofku caan noqdo waxaa waajib inuu cadow yeesho ugu horeyntiiba sida aan ku sheegay waxay ku xiran tahay cadownimada dadku qofku inta uu caan yahay inta caanimadiisu laagtahay tusaale ahaan haddii aad leedahay 100 qof oo ku raacsan hal cadow ayaad yeelanaysaa haddii 1,000 ku taageersan ay jiraan 10 cadow ayaad yeelanaysaa haddii 1 milyan uu ku taageero 10,000 oo cadow ayaad yeelanaysaa boqolkiiba hal meesheeda bay joogaysaa boqolkiiba 2 meesheeda joogaysaa boqolkiiba 10 si kastoo ay ahaato nisbadu meesheeda joogaysaa laakiin dib ayaan ka ogaaday arrintu inay sidaa ahayn haddii aad fiiriso siirada nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markii uu bilaabay diinta islaamka fidinteeda ugu horeyn 5 qof ayaa raacsaneed wax cadow muusa lahayn 50 kadib 100 wax cadow muusa lahayn laakiin markii ay bilaabatay in muslimiintu bataan markaas ayaa cadaadisku iyo cadownimadu bateen haddaba maanta qofka ugu caansan adduunka waa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam xitaa Michael Hart xitaa haddii la waafajiyo dadka aan muslimiinta ahayn qofka ugu caansan ee loogu aqoonsi badan yahay caalamka waa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanta haddii aad ogtahay waxaa jira 1.8 bilyan oo muslim laga yaabee 100 milyan oo kale laga yaabee dad aan muslimiin ahayn
inay jecel yihiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. waxaa suurtagala xitaa inaad dhahdo 2 bilyan oo muslima ayaa jecel nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam, balse kuwa ka soo horjeeda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa ay ka badan yihiin 2 bilyan. waa sababka caannimada, nisbada iyo xaddiga dadka cadowga ah waa is sii badanaysaa.